munaasabadan oo gundhigeeda ahaa taageerista iyo hambalyeynta ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo dhawaan xilka ra'iisul wasaaraha loo magacaabay jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg qeybaheeda kala duwan ayaa soo buux dhaafiyay hoolka ay ka dhaceysay xafladda taageerista iyagoo si weyn u soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub uguna baaqay soo dhisitaanka dowlad qaran oo badbaadisa dadka iyo dalka. waxaan halkan isugu nimid taariikhda Soomaaliya isbedelaysa waddo cusub gashay inaan u dibaaldegno waa ogeedeen dadkii ka horreysay waxaan u dibaaldegnay madaxii jamhuuriyadda ama madaxweynaha oo ah qaybta fulinta waxaa ka sii horreeyey qaybta sharci dejinta ama waxa loo yaqaan baarlamaanka. هذا وحنا سبنا وحوي غير تقدم بيسي ودول تقدم بيسي سواء حر إلى أما شرع إلى بجسد وحنا سبنا من إن السود وينه رئيس الوزراء عصوب الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن عبد فارح شردون. waxaan isugu nimid inaan halkaa ku muujino sidaan ugu faraxsannahay magacaabistiisa oo raalli uga nahay taas ayaa muujinaysa isu imaatinkeena waxaan rabnaa sharaf loo ah inaan soo dhaweyno isbeddelka cusub siyaasadeed ee Soomaaliya ee u aragno haddaan nahay dhalinyarada inuu yahay isbeddel cusub oo u bilowday Soomaalida ayagoo markaa Soomaaliduna u muujiyeen isbeddelkaasi inay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan taasi oo laga dareemi karo meel walba ay joogaan sida wadaniyadda ku dheehan tahay Soomaalinimada ku dheehan tahay qaaradaha Yurub iyo qaaradaha Afrika ay u soo dhaweeyeen isbeddelkaas siyaasadeed isbeddelkaas ka dhacay Soomaaliya. xafladan ayaa ahayd tii saddexaad ee lagu taageero madaxda dowladda cusub waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee Johannesburg Hill iyo Hoba ula garab taagan yihiin madaxda dowladda waxayna ka sugayaan in ay dowladani ay noqoto tii samata bixisa ummadda Soomaaliyeed. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, Johannesburg.